shirku wuu salaaman yahay salaantii xaqa ahayd ee xurmada ahayd ee islaamnimada ahayd ee ehelnimada ahayd ayaa shirku salaaman yahay qof nin waliba rag iyo dumar marwo iyo mudane qof waliba darajadiisu ku salaaman yahay raggu ilaa badhiwalaha ilaa madaxweynaha darajadiisu ku salaaman yahay oo golaha la fadhiyo yuu ku salaaman yahay salaan ka bacdi sidaa loo sheegay eed raggii horeba u sheegay ururkan caawa golahan caawa isu imaadkan caawa ilaahay xukunkii iyo asbaab aadan madoobun baa isu keentay asbaabtaa aadan madoobe 750 sannadood yaa aadan madoobe xusbi ah ka ugu horreeyey NUF baa la odhan jiray magaciisa kii ku xigayna SNC baa la odhan jiray 750 sannadood mucaawin baanu ahay mucaawin baanu ahayn xusbiyadaa kale ninkii ka sharaxan xusbiga aanu nahay ninkii ka sharaxan yuun baanu caawimi jiray ilaa kulmiye ilaa NUF xusbi un baanu ku jiray intaanu ku jiray ee kulmiye ka horreysay wax ceebahoo aadan madooba keenay ma ay jirin caawaannu kulmiye nahayn inaannu ceebkeenna waajibba naguma aha ammaan aadan madoobe aan ammaanayaa ma jirto aadan madoobe wuxuu yahayba dadku waa yaqaan wax cusub oo la baranayo oo dadka loo sheegaya maaha waxaanu se leenahay ilaa intaa xusbigaasaanu ku jiro xusbi un baanu ku jiro ceeb maanu keenin caawana waxaanu leenahay aadan madoobe intaa uu mucaawinka ah dee madaxweyne kaluun baynu caawinayn markii kulmiye markaynu nidhi aan axmed maxamuud aadan aynu siino madaxweyne u dooran ee soo fulinay mucaawimiin waxay noo noqday xusbiga kulmiye oo ina caawiyey sidaynu kuwa hore oo caawimi jiro aadan madoobow caawimadii waxay isweydiin leh axmed maxamuud aadan ma aadan madoobaa soo saaray mise kulmiyaa soo saaray jawaabtu waa kulmiyaa soo saaray haddii axmed maxamuud aadan kursigii ka degay oo iskiisa uga degay oon kulmiya la dooran oo ka deg la odhan waa xaq laynoogu yeesha inaynu kulmiyo ninkii ka soo baxay madaxweyne doon inaynu caawinno u abaalgudno oo abaalgud bixinno ilaahay u naxariista horaaba loo sheegay salaan maxamed wuxuu yidhi abaalmagude gobay baa ka roon kuu gabraarsada haddii qofkii garanayo gobayga iyo gabraarta qofkii garanayaa wuu garanaya kii aan garanayn haddaan uu sarrifo gobaygu wuxuu ahaa niman mar odhan jiray qaansale baan la yidha marna magac kale sheegin jira iminkana ninka la yidhaahdo nadiif suldaanu yaho suldaan nadiif la yidhaahdo nimankaasay ahaay gabraarsiguna wuxuu ahaa ugaadha xabadda lagu dhuftee la dulee la qasho wuxuu markaa uga jeeda abaalmagude
kaadee ogaadha ku soo dilaya hedab xaraaraha ku siinaya ku dhawo yaa ujeedadiisu wey marka noqon mayno abaalmaguda noqon mayno abaalmagudaha in adeerkii abaalawga kuma odhane cali dhuux aadan buu ku yidhi oo abaalmagudaha ka dhigay ma noqonayno abaalmagude ogaysiis waanu abaalgudayno oo kii kulmiya nagu lahaa baanu gudayno waa intaa ii raaca halkan hadallaa laga taataabtay dad daba ka hadala iyo dad wax odhan doona hadduu xusbi yahay iyo haddii aadan madoobe xaggiisa laga taabtayba dad baa halkan laga taataabta waxaan leedahay laba sheekaan maqlay mid waan maqlay midna shaahid baaban aha gabayna waan maqlay sheeko waxaan ku maqlay dad culimo leh oo codkar leh oo caamo leh oo carruur leh oo rag leh oo dumar leh oo madax leh oo meel jooga yaa bil rabadaan dhalatay alla waa rabadaan ilaahu khayrkadana teela waa war maxaynu yeelaa wadaad baa wacdiyo wuxuu yidhi wax la yeelayaa ma jireen dee ha la sooma rabadaan baa la soomay soddonkiiba way soomeen soddonkii markii la soomay yaa galabtii ay dhammaatay oo la afuraayo yaa qoladii soddonkii soontay neefaan gurigiisa mindi la marin oo magaca lagu sheego dee imka odhan kari maayo laakiin hungurigiisa mindi lama marin yay ku afureen soddonkii rabadaanna waa soomay neefkaan hungurigiisa mindi la marinna way ku afureen waxa weeye hadalkaa kulmiya caawa leeyahay ee isugu yimi ee yeedhiyey ninka wax ka daba keena waxuu noqon ninkii la odhan jiray maxamed caddaan ilaahay u naxariistay isaga iyo xumuusan islaameeda waa dabaqabad magaalada dabaqabad la yidhaahdo ninka asaasay ee baraagaa ugu horreeya ka samaysto yaa gabay marshay intuu gabaygii soo waday buu yidhi ninna uma dhoweyn ee cidlaan dhaabay waranka dheka maqal ha joogte ninkii dhiiriyaa qaba kow ninka hadalkaa caawa kulmiya leeyahay ninka saabaha u idhaahda ninkii hadalka daba keena waa dee warankaa maxamed caddaan sheegay ee cidlada ka taagay ninkii warankaa ninkii soo fujista kaasuunbaa qaba xusbi ahaado mid kale ha ahaado kaasaa qaba kaa warankaa kaasaa qaba waa hadalka halkaa caawa kulmiya ka yidhi ninkii hadalka daba keena ee yidhaahdaanaa layla jeeday neefkaanun gurigiisa mindida la marin kii cunaduunbaa kaas shaahidna waxaanu ahaa berigii hore risuqu marba meel buu saara mar buu xoolaha saara ninbaa dadkuna nin xoololeh iyo nin la celceliyuah mid xoola raaca oo geela raaca yaa geel kale ku soo ekaada nirgii buu tiriyey kula joogayna nirgihiisii buu tiriyey saa geeli kaleeg ayaa nirga batay aryaha waar kan dani kuma jirtee ka nirgaha badan leh iska raac geelu qaar baa geelal iska dhan yaa gabnaba iska ahoo hiddaba gabna isaga leh wax walba hiddaa loo leeyay kuma xisaabtamin waaryaha waar tolobkaaga maka naasmaad roog nirgii midharhka dheeraadu ku xisaabtamay wuu iska raaca waxaan leedahay kaa geeli uu la joogay nirga badnaanta ka tirsaday ee naasbaalba ku xisaabtamay ee neefku dheeryar ku xisaabtamay
kaana waxa weeye dee war lacagtu baan bay ku jirtaa qasnad bay ku jirtaa shandad bay ku jirtaa jeeb bay ku jirtaa ma muuqanayso kaana waxa weeye inuu ku xisaabtamo yaa u wanaagsanay naasmaalka iyo haddii siduu gaal u kala badiyo yaa u wanaagsanay kaana waxa weeye isagu kaasuma xisaabtamo kaayo kanba kii la yidhaahda caawa kulmiya halkaa ka yidhi anaa la ila jeed ee hadalka daba keen kaasuna kaa weeye gabayna waxaan ku maqlay nin dakharra la yidhaahdo oo reer England yaa show gidaarku dee isku yar gud niman daarooda yaa markab la soo galay kuwii buu u tegey waryaadheen dee waxaan ahay nin daarooda oo qoladooda la yidhaahda daal jire oo sacad muuse ku dhex jira oo ku busaaradsan oo markaa sacad muuse ku dhex jira yaan ahay oo sacad muuseana gumaysta inaannu ka soo guurana noo diiday dee maanaannu idin soo marramayn sheeko caynkaasuu siiyey dhar iyo lacagba waa la siiyey isagoo intiisii dee ku lebisan yuu dee ile waa nin meel ka dhasheedoo sacad muuse ah uu dee sheekaduisii la gal wuxuu yidhi midba huloog baa yidhi war dakharrow dadkuba wuxuu lahaa daal jiraata doqonnimadaadii hadday dakhal ka dheeraatay daarood maxaa tari haddaad diidda sacad muuse warorta qoladan le qolaa yar leexatay waxa hadalkoodu igaga dhan yahay maxay tari kay u tageen ka baadan madooba diida bal kuu tegey muxuu tari doona waa waxba weeye waxba ma taraay taasuna taa weeye intaa markaan ka xusliyo xagga muuse u leexdo muuse biixi u leexdo muuse aadan madoobey dee wuu yaqaan waa kii galabtaba sheegaya dhulkana hawdkaad la joogo wuu wada yaqaano wuu wada mara waa kii jabadka ahaan jiri waxa weeye iyada waxaan leedahay haddii ilaahay waynagu guulaynaya ee alla inagu guuleeyo intaa axmed maxamed maxamuud xukumo yuun baynu xukumi haddayna waxbaba ku darsan hadalka waxa weeye haddaynu intaa xukumay wixii axmed maxamed maxamuud aadan qabtay dadka ninkii iimaan leh wuxuu dalka ka qabtay iyo wuxuu dadka u qabtay intaba ninkii iimaan leh ama indhaha qabaa wuu arkay ninkaan iimaan lahayn indhaha aan qabin ma arkaayo waxa weeye intaa wuxuu qabtay wax ka badan inaad qabataannu ilaahay ka rajaynayn aad qabato yaannu ilaahay kaa rajayn waxaa ii raaca mid mucaarada iyo mid muxaafida iyo mid cadowa iyo mid nasteexa mid kastaba ahaatee ilaahay baynagu guulaynaya haddaynu ku guulaysan haddase rag baa waxinala ku guulaysano cadaalad ku xukun baan ku leehay cadaalad wax la yidhaahdo ku xukun oo cadaawad wax la yidhaahdo yay soo geli nin walba dembigiisa ku qaad waxaa la yidhi anaa dadka idhaa war runta ha laysu sheego haddaanan runta anigu sheegin dee waa waxba kuma ol runta ha laysu sheegadaan idhaahdo runta waxa weeye
markay gidaarada kaa xamanaya ama ku xumadoon yihiin waxay yidhaahdaan muuse biix askari buu ahaado xukumul militari yuu dadka ku xukumayaabay yidhaahdaan oo gidaarada kaaga xanta taana waxaan leedahay war malabiya kaga dhigo kuwa waxaa ku sheekaynaya malabiya kaga dhigo cadaalad ku xukun yaan taanu ku leh oo aan ku leh markaa waanada yay aniga iga tahay adiguse si kastaba u qaado waxaan intaa u dhaafaya